inaad aakhira badbaadday iyo adduunka labadaba hal jid bay leedahay oon mid labaad lahayn jidkaasina waa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi raacitaankiisa rumayntiisa jidkiisa inaad marto raadkiisa inaad raacdo inaadan midig iyo bidix midna uga leexan dariiqaa way dariiqa keliya ee ku siinaya damaanad inaadan adduunna khasaarin aakhirana khasaarin maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala markuu nebi maxamed soo diray kadib jid aan jidkaa ahayn waa xidhay dariiq kaloo ilaahay loo mara ma jiro oo rabbi naxariistiisa lagu gaadhi karo oo jannadiisa lagu heli karo oo rabbi tabaaraka wa tacaala adduuniya aakhiraba liibaanta uu dhigay lagu heli karaayo ma jiro oon ahayn in nebi maxamed la rumeeyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadibna dariiqii sii la raaco sharcigii iyo manhajkuu la meedii midna la dabagalo dariiqaa way dariiqa keliya ee ku badbaadin kara waxaa nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu yidhi ummaddayda oo dhan waa mid la caafiyey cafi iyo caafimaad bay haysataa ilaa ummaddaydoo dhan jannaday gelayaan ilaa ciddii diidda mooye waxaa la yidhi rasuul ilaahi oma cid baa jannada diidaysa barwaaqada meeshaa taalla ma cid baa inta la siiyo ku gacan saydhi oo mar raba dhahays nebigu wuxuu uhi sal alla alayh wasalam ciddii aniga i ateecda iga amar qaadata sharcigayga raacda kaasi jannadii buu galay ciddii i caasida amarkayga diidda jidkayga garab marta oo jid kala jeexata kaasina jannadii waa diiday buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka caasi ilaahay nebi maxamed dariiqiisii garab maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh jidkii uu jannada ku geli lahaa ma hayo wabittaali jannadii waa diiday meel kaluu u socdaa marka sidaas daraaddeed buu nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh tusaalayaal ka bixiyey arrintaa iyada fara badan qur-aankuna meelo badan inoogu tilmaamay tusaalayaashaa waxaa ka mid ah rasuulkeennu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh mahalkayga sifadayda waxaan ka dhignahay sidii nin dab hursaday oo kale dabkii markuu huriyey oo dabku wixii agagaarkiisa ahaa uu iftiimiyey ayaa waxay bilaabeen baalalaydii iyo cayayaankii inay dabka ku daataan isagiina wuxuu bilaabay inuu cayayaankii iyo baalalaydii uu dabka ka qaqabto ka celiyo baalalaydii iyo cayayaankiina inay ka tambataan oo ka xoog bataan oo ay ku daataan dabka isagiina celcelintoodii ayuu ku mashquulsan yahay ayaguna waa ka tambadinahayaanoo markaasay dabka isku daadinayaan nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam taasi tilmaantaa iyo sifadaasi waa aniga iyo idinka sifadeenna buu rasuulku uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasoo kaleaan u naallaa buuri anigu waxaan ahay buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh guntigaan idin hayaa oo naartaan idinka celinayaa oo waxaan idin leeyahay halumma cani innaari halumma cani innaar war naarta ka soo carara war naarta ka carara war naarta ka jooga war halaagga ha gelina guntigaan idin hayayoo gadaal baan idiin jiidayaa idinkuna intaad iga tambadataan oo iga xoog badisaan baad dabka ku daadanaysaan oo isku tuuraysaan buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam maxaa laga wadaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa dhawaaqay nuur iyo iftiin buu la yimid adduunkaasuu soo dhex dhigay iftiinkii iyo nuurkii iftiinkiisii iyo nuurkii ciddii ku iftiinsataay ciddaasi waa cidda badbaaday ciddii khilaafto oo garab marta soo ma aha waxay la mid tahay sida baalalaydaa dabka ku daadanaysoo kale baalalayda dhinacyo badan bay iska shabbahaan baalalaydu waxay dabka ugu daadanayso midda koowaad weeyaane araggeeda ayaa daciifoo tabar daran saas daraaddeed iftiinka dabka
iyo nalka ayaa ka xoog badan oo jiidanaya meeshaa waxaa laga qaadan ninka jidka nebi maxamed khilaafay sida baalalaydoo kaluu u aragti gaaban yahay waa baalalay oo kale sidaas daraaddeed araggiisaa daciif ah basiiradiisa iyo garashadiisaa daciif ah waa midda labaadee waxaa la yidhahdaa baalalaydu waxay dabka ugu daadanayso waxay moodaysaa wax nafci leh markay ku dhexdhacdana gubatay gaalka iyo caasiguna waa sidaa gaalnimada wax nafci leh buu moodayaa shirkiga wax nafci leh buu moodayaa macaasida iyo dunuubta iyo shahawaadka marka la gelaya wax nafcilay kuugu muuqanayaan oo shaytaanku kuugu qurxinaya sida baalalaydii baad ku daadanaysaa adoo wax moodaya waabaad gubatayba meeshii haddaad tagtay ood moodaysa inaad nafci ugu tegayso